maalin isagoo dabaalanaya ayuu si lama filaan ah u arkay shabeelkii muddo dheer raadinayay. shabeelkuna bishimiis ayuu leefleefay, afkiisana waxaa lahaa dhiig, waxayna caddeed inuu hadda ugaarsaday xayawaan. wiilkiina cabsi ayuu la barafoobay, wuxuu isku qariyay biyaha hoostooda, cagtiisana wuxuu ku dhajiyay xidid geed, wuxuuna neefta ceshtay muddo dheer. ugu dambeyn xumbooyin ayaa afkiisa ka soo baxay. xumbooyinkii ayaa markiiba soo jiitay dareenka shabeelka. shabeelka biyaha ayuu si adag u eegay, mana uusan dhaqaaqin. markii wiilku ku sigtay inuu neefta waayo ayuu shabeelka iska dhaqaaqay. wiilkiina biyaha ayuu ka soo baxay isagoo si xoog leh u ordaya. si lama filaan ah ayuu gadaashiisa uga maqlay guuxii shabeelka. shabeelka ma uu bixin, wuxuu sugayay fursad uu ku weeraro. intuu argagax ka orday ayuu ku dhacay dabin ay dadku dhigteen. qayladiisii waxay ka dhex jirtay kaynta. shabeelkii madow oo u dhowaa ayaa maqlay qaylada, wuuna soo orday. nasiib wanaag wiilkii wax dhaawac ah ma gaarin, wuxuu si dirqi ah ugu badbaaday birihii fiiqnaa ee godka ku jiray. si kastaba ha ahaatee shabeelkii ayaa hareeraha godka ku wareegay. haddii uu kor u soo baxana waxaa cuni lahaa shabeelka. isagoo garan la wuxuu sameeyo ayaa tallaabooyin culus la maqlay. maroodi dheer ayaa hoos ugu soo degay, wuxuu jiridiisa ku duubay wiilka, kor ayuuna u qaaday. wiilkiina isagoo yaaban ayuu kor u eegay. ilaaliyihii keynta ayaa badbaadiyey. wuxuu ahaa maroodi duq ah, jirkiisana waxaa daboolay caws iyo dhir. mid ka mid ah faantiisa ayaa jabnaa. muuqaalkiisana wuxuu ahaa mid cajiib ah oo aan la ilaabi karin. maroodigu wax abaalmarin ah ma uusan dalban, wuu jeestay oo iska tegay. wiilkuna waqti ma lumin, wuxuu raacay shabeelkii madow oo halkaas ka dhaqaaqay. dhacdadaas kadib shabeelkii madow wuxuu go'aansaday in keynta wiilka aysan u ammaan ahayn. wuxuu rabay inuu ku laabto tuulada dadka. shabeelladu waxay ka baqaan dabka dadka. tuuladana waxay ahayd meesha ugu amniga badan, laakiin wiilku keynta ayuu u arkayay gurigiisa, wuxuuna diiday inuu baxo. ugu dambeyn shabeelkii madow heshiis ayuu la galay. haddii uu ku guulaysto kaalinta koowaad ee tartanka yeeyda, wuu sii joogi karaa keynta. tartankan waxaa wada ordayay yeey yar, halka hal ugaarsado isku dayayo inuu qabto. qofkii ugu horeeyana wuxuu noqonayaa boqorka yeeyda. inkastoo si adag usoo tababarto, gacmuhu kama dheereeyaan lugaha yeeyda. mar walba xoogaa ayuu ka gaaban jiray. casharada kadib keligiis ayuu sii tababaran jiray. wuxuu si joogto ah ugu celcelin jiray tababarka, isagoo bartay inuu gacmihiisa faa'iido uga dhigto. bahalka weyn oo keliya ayaa ogaa dadaalkiisa. ugu dambeyn maalintii tartanka ayaa timid. markaan shabeelkii madow ayaa noqday ugaarsadaha. wiilka cabsi ayuu la gariiray markii uu eegay indhihiisa qabow. wuxuu ogaa in tartankani aad u adkaan doono. calaamadii boqorka yeeyda markii la bixiyey ayay dhammaan yeeydii ordeen. Laydla White oo ahayd yeeydii ugu tabarta yarayd ayaa ugu horeyn la qabtay. wiilkuna si adag ayuu ula halgamay. shabeelkii madow si toos ayuu ugu soo baxay. waxay u muuqatay inuusan cid kale dan ka lahayn. markay indhahoodu isqabteen, wiilku wuxuu dareemay inuu doonayo inuu dilo. cabsi darteeda ayuu geed fuulay. shabeelkii madow si tartiib ayuu usoo daba socday. maadaama uu yaraa wuxuu ka baxay meel ciriiri ah. wuxuu qabsaday geed dheer, wuxuuna uga booday dhinaca kale. si uu u guulaysto ayuu jebiyey xeerarka. wuxuu isku tuuray buur dheer. nasiib wanaag wuxuu qabsaday laangeed. xawaare sare ayuu jiridda ugu soo siibtay. xawaarahaas ayaa u suurageliyey inuu gaaro yeeydii kale. bahalkii weynaa aad ayuu ula yaabay markuu arkay isagoo hoggaanka qabtay. wax yar kadib xariiqada dhammaadka ayaa si lama filaan ah wax madow ugu soo booday. wiilkii islamarkiiba dhulka ayaa lagu tuuray. shabeelkii madow ayaa